tiro badan kama jiro. midda koowaad waa inaan u duceyno arwaaxdii shuhadadii halkan dhibaatada ku soo gaartay wiilashii maaragtay halkan sawirradooda ka muuqdaan xaruntan lagu laayay quraan akhris saaka waa u sameynay ilaa maantana ducadooda ayaan wadno munaasabadaas ayada ah inaan wiilashaas xusno oon xasuusano waa ujeedka koowaad. midda labaad wuxuu ahaa in dee taariikhda sideedaba waxaa la ayadaa nafteeda soo celisa. marka dad badan waxaa laga yaabaa inay is yiraahdaan war maxaa loo xusayaa 17 December oo loo sheegayaa ma waa arrin dhacday ee ma laga gudbo oo hore looga socdo. waxay dadku marka isaga qaldan waxa Soomaalida dhexdeeda ka dhaca oo ayaga isku sameeyaan tii qabaayil is dagaalaan ama ceel isku dagaalaan ama biyo isku dagaalaan wax iska dilaan waa la gartay. laakiin waxa anaga xasuusteena aan ka go'aynina waxay tahay ana rabna xasuusta dadka Soomaaliyeed inaan ku hayno xasuustooda waa in dawlad magaceed wax lagu dilo oo dad ayagoo nabad ku nool cusub iska ah si nabada ku jooga deegaankooda habeen barkiis inta madaafiic iyo hub iyo rasaas loo soo qaatay lagu laayo lagu gumaado lagu xabadeeyo lagu xadgudbo way waxaan ka hadlaynaa ayadoo la adeegsanayo magacii dawladda alle dawladdu waxa la isku darsaday inta lamid oo Soomaaliya dawladnimada isku darsatay oo wax naga dhaxeeyay marka wixii naga dhaxeeyay yaa magacoodii anagana lagu dilay. taas waa mid aan daba socono dilkii marka uu dhacay dadkii cadaalad ma helin oo haddii dadka dhibka geystay la maxkamadeeyo cadaalad la saaro markaas waxaad dhihi kartaa waa ka sabri kartaa oo war dadkii la dilay cadaalad ay heleen aad dhihi kartaa. cadaaladna ma helin dadkii la laayay oo dadkii laayaa weli taladii jooga oo cadaalad aan ogolayn in la marsiiyo ayagana lala tiigsado cadaaladii dadkii dhibka geystay la cadaalad lala yimaado aan ogolayn. waxaan kaloo u xusaynaa waxay tahay inaan taariikhda la inxiraafinin ama aan wadadeeda laga leexin. maalintood waxaan fiirsaday waraysi oo bixiyo qof mas'uul ah oo dalkan xilal muhiim ah ka soo qabtay xilligii dawladdii maaragtay militariga ay jirtay iyo ka dambaba jagooyin way soo qabtay. wuxuu ka hadlayay dhacdo xasuuqa oo ka dhacday Al-Jazeera oo xilligii dawladdii militariga ay la sameeyay. ninka mas'uulka wuxuu yiri dadkaasu ayaa gardaray sababtoo ah baabuurtii ay ku xirnaayeen maxaabiista ka ayeen ka boodeen. waa nin mas'uul ah oo dalkan laga yaqaan xilligii hore iyo xilligii burburka kadib mas'uuliyad soo qabtay. muxuu sameynayaa qofkaas si ula kaco wuxuu u sameynayaa inuu taariikhda ka been sheego. annaga markii waxaan ugu celcelinaynaa munaasabadda waxay tahay inaan taariikhda laga been sheegin oo bari la dhihin wiilashii halkan lagu laayay ayagaa dawladda soo weeraray. inteena waxaa laga yaabaa sanado ka bacdi inaanan joogin waana ogtihiin wixii jasiiro ka dhacay dad ganacsato iyo aqoon-yahan iyo saraakiil inta magaalada xamar si qabiila looga aruuriyey halkaas lagu xasuuqay oo weliba faamil 5 wiil isdhaata ku jira ay ka mid ahaayeen. nin mas'uula maanta inkiraayo oona ka been sheegayo. annaga waxaan diidanaa marka in taariikhdii meeshaan ka dhacday laga been sheego marka inay xasuusta dadka ay ku joogto waay. xaflad tan lamid ah yaa dhowr maalin ka hor magaalada lagu dhigay 13 bishii oo ah dadkii Baydhabo lagu xasuuqay. waxaa la ii sheegay nimankii xafladda qabanqaabiyay nin ka mid ah inuu xiran yahay oo xabsi la geeyay oo la yiri maxaad u dhigaysaa xusuustaas iyo maalintaas ayada ah. ninkaas magaciisa waa nin wariyaha BBC intiina badan ah ka maqli jirteen waxaa la yiraahdaa Yuusuf Xasan la yiraahdaa. waxaan ku baaqaynaa ana ka rabnaa annaga kulleed wada jir ahaan waa ku baaqaynaa xisbiyada kale meesha jooga iyo dadka kale oo dhanba inaan u galno dadaal in laga sii daayo xabsiga ninkaas oo ka tirsan xisbiga amniga iyo cadaaladda. xaq uu leeyahay waa muwaadin dastuurka siinaayo gudoomiye Timjila waa maqlaaya akhyaarta kale oo xisbiyada madasha ka joogto waa maqlayaan. waa inaan dhamaanteen dulmiga qof ku dhaca hadii looga aamuso barina adoo ku imaanaya. marka annaga waxaan ku baaqaynaa dawladda ugu baaqaynaa inay xariga ka sii dayso Yuusuf Xasan xorriyadiisa siiso. waa sharci darro dastuurkii ka soo horjeeta waa dulmi waa ka anaga nagu dhaco kale dulmiga anaga nagu dhacayna qofka inuu ku dhaco ma yeelayno. waana waxaas marka haddaan dulmiga la iska qabanin markuu ilaahayna caynayay maar reer bani Israa'iil u lahaa kaanuu laa yatanaahawna
عن منكر فعلوه أهل ظلمي ده إسكعلي جري ما هين ظلمي إسكو في سجرين أنا مركا هل قفدي للظلميو وإنا كهرتنا دمانتين صوتو odayaashiinaan iyo siyaasiyiintiinaan xildhibaanadan qofal banta guriga loo soo galaa habeenkii la rabo la xiraya oo iridda lagala baxaya marka taasna waan ku baaqaynaa ninkaas odaga in la sii daayo yaan ku baaqaynaa oo xorriyadiisa la siiyo oo shakhsiyadiisa iyo karaamadiisana aan lagu xadgudbin inta kalena waxaan ugu baaqaynaa arrintaas inay ayagoo saas oo kale baaq ka soo saaraan oo fariimahooda si cad ay u diraan ugu baaqaynaa waa mahadsantihiin wasalaam qofkii ka badbaadayna ilaahay amarkiisa uga badbaada moogaye dadka dhintay iyo kuwa badbaada labaduba isku siyaa loo soo weeraray cidda ku dhimatay iyo cidda ka badbaada labaduba si isku mid ahaa dhibku u wada gaaray marka taas waa tii oo tacsida tan labaad oo aan raba inaan ku daro waxaa waaye dadka meeshaan isugu yimid kulligood waa ka dhiragsan yihiin annaga waxa oo 17 December aan u daba joogno waxaa waaye isbeddelaa waddanka ka dhacay anna dowladnimada wixii ka horreeyay 17 December waxay ahaaday meel nabada oo dadku u dacwoodaan oo dadku ay rajo ka qabaan oo dadku ay u gartagaan laakiin 17 December wixii ka dambeeyay dowladnimadu waxay noqotay wax la isku cabsiyo oo dadka loogu cagajugleeyo oo wadooyinka lagu xirto oo hoteelada lagu handado oo qofkii meel ka hadasho iyo qofkii arrin kashaba loo booteeyo oo asgar la soo diro oo ciidamo la isticmaalo oo wax anaga nagu cusub naqatay saas darteed anaguna waxaan go'aansanay dhaqankaas inaan looga harin laano haddii qofku ay inta jid khaldan aado aad ka harto waxay u qaadanaysaa inay saxan tahay muhiima ahaan waqtiga laga daba tegaayo laakiin waxaa muhiima qofku haddii jid khaldan qaado haddaad uga aamusto adi laftaadu dhibkun waa ku soo gaaraa wixiina waa kugu dheerahayaan annaga marka waxaan go'aansanay intiiba dhaqankaas khaldan oo waddanka lala aaday oo maalinkaas wixii ka dambeeyey oo dadkii iyo waddankii asgar iyo ciidan ama ajnabi ha naqdeen ama soomaali ha naqdeene si khaldan loo isticmaalayo annaguna waxaan go'aansanay inaan u taagnaano inaan dadkaas la dhibaataynayo aanan ka harin sababtoo ah waxaana dadku ugu horreeyey oo dhibkaas ku dhacanahayna lagu xusayo lagu xasuusanayo nimankii dhalinyarada ahaa iyo xadgudubkii iyo dhibkii ka dhacay gurigan iyo dadkii lagu laayay waa u ducaynaynaa ilaahay inuu dembigooda dhaafo oo kitaabkooda midigta ka siiyo waxayna calaamad u tahay qof cid kasta oo la dulmiyey ayay maaragtay tilmaan u tahay xasuustaani ay maaragtay la wadaagayaan marka cid kasta oo maaragtay dulmi ku dhacay ama ha horreeya ama ha dambeeye sidii hadda hore uu cabdiraxmaan u sheegay dulmiyada iyo dembiyada dhagaraha la gelaya dadku waa badan yihiin laakiin waxay leeyihiin stageyo kala duwan midka gacanta dowladda lagu galayo waa ka duwan yahay kuwa kale maxaa yeelay dee dowladdu waa wax la wada leeyahay waa wax maaragtay dadku wada ilaashanayaan marka gafka iyo dulmiga ay dowladda xilliga dowladnimada la haysto lagu galo ma aha wax sahlan iyo wax la isaga haray waana waxa keenaya in maaragtay mar walba dadku u taagnaadaan inay soo qaadaan ama ka hadlaan iyada oo mushkilado badan ay dalka haystaan oo dagaallo qabiil iyo maaragtay dagaallo shabaab iyo mushkilado badan dadku ay ku dhimanayaan waxaan rabaa inaan ku booriyo xisbiga wadajir run ahaantii dulqaadka iyo u hoggaansanka sharciga in ayagoo xadgudubka intaas la-eg lagu sameeyey aysan sharciga weli daba joogaan oo ay leeyihiin cadaaladan u baahanna sidaan la soconno Soomaaliya waxaa ka jira haddii maaragtay lagu maago lagu gardaraysto inta lagu geysto kale qof walbaaba inuu sameeyo laakiin xisbiga wadajir iyo odayaashiisaba waxaan runtii waa wax ku dayasho mudan in sharciga loo hoggaansamo si cadaaladana lagu raadiyo waxaan rabaa horta inaan u duceyno ilaahay inuu naxariisto dembigooda ilaahay dhaafo xaqdaraa lagu dilay xaqdaraa lagu dilay ilaahayna waa sheegay xaqdarada lagu dilo
ilaahay u dembi dhaafo allah u naxariisto inta ka soo qayb gashayna dembi dhaaf allah siiyo ayagana odayaasha iyo dhallinyarada iyo xildhibaanada iyo kulligood waxaan leeyahay ilaahagana ilaahay ha u dembi dhaafo sheegay magacaygu waa maxamuud cali waxaan rabaa in magaca dumarka kan xisbiga wadajir iyo kan dumarka Soomaaliyeed anoo ku hadlaayaan u tacsiyadeeyo shantii qof ee shuhadada ahaa ee gurigan si xaq dara ah loogu dilay dishayna dawladii ay ka diiwaan gashanaayeen askartooda ahaayeen walina aan laga garaabin aniga dareen dumarnimo ay kiciyay rag ayaga isku hadli kara isku tacsiyeen kara waxaan si gaar ah ugu tacsiyeenayaa dumarkii ragooda gurigan ku waayay waxaan sidoo kale sabir siinayaa caruurtii aabayaashood dhinteen halkan gurigan ku agoontoobay magaca dumarnimo anoo ku hadlaaya gabdhahaas waxaan leeyahay iyo caruurtaasba ilaahay mar uun cadaaladda wuu keeni doonaa waxaad haysataan xisbi marna aan ka caajisaynin inuu muujiyo xuquuqda iyo xusuusinta aabayaashiin halkan ku geeriyooday waxaan wada raadin doonaa cadaaladda mar uuna wada heli doonaa aad u mahadsantihiin dhalinyaradii meeshan ka dhac ku la'atay ama lagu dilay waxaan leenahay Allah u naxariisto ilaahay cafiyo damigooda Allah dhaafo intii ay ka dhinteenna Allah uu qalbi qaboojiyo samar iyo iimaan hadda wax kale anaga oo noo furana runtii ma jiraan waxa kaliya anagana la karaa waxay tahay dictatorshipka anaga abuurayna madaxda maalintii qaldan yihiin hal joojiyo yaan la buunbuunin qof aan waxba ahayn oo waxba aan dheereyn maalowda waxa Sheekh Shariif ayiriya la yiri thumma wallahi waa la bixina aniga waxaan qabaa warkaas waa run nin kasta oo sharci lagu doortay oo sharci darro ku dhaqmo waa la bixina maba ahan in laga gorgortamo because anaga dalka in dawladnimada dadka lagu dilo qof uma dooran meeshan uma geysan marka waxaan leenahay samri iimaan xisbiga jirna hadii cadaaladda iyo halganka meeshiisa ku sii wado waxyaabaha sidaan oo kala dalka ay ka dhacaan oo aanan sharciga iyo loo hoggaansamin qofkii dambiile ah aan loo marin procedure-kii oo dawliga ahaa ee maxkamadii iyo waarantigeedii qofkii aan dambi lahayn wixii mataqaanaa lagu suubiyeen qofkii ku suubiyo dawladnimada iyo sharciga aan la waafajinaynin dalkeena ma sii jiraayo macnaha marka waxaan aad iyo aad rabaa inaan idinku mataqaanaa inaan idinku garab istaagno wixii halkan ka dhacay qaab daradii ka dhacday sharci daradii ka dhacday ku xadgudubkii maxaan ku dhahaa ku tumashadii sharciga oo halkan lagu suubiyay inaan aad ugu xunnahay qof kasta oo madaxna waxaan ku dhiirigelinaynaa sharciga in markasta la ilaaliyo sharciga sariintiisa in la ilaaliyo gaboodfal iyo dambi sidaan oo kalena inaysan sahlaneyn in dadka ay qaataan shacabka Soomaaliyeed aad iyo aad aan ugu xunnahay